waddanka Turkiga qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ayaa ka bogsooday cudurka coronavirus waxa uuna ka mid noqday muwaadinkaasi Soomaaliga ah 105 qof oo waddankaasi Turkiga laga soo saaray isbitaalada kadib markii ay ka bogsoodeen cudurka coronaviruska waxaana guud ahaan sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurkani coronavirus ee waddanka Turkiga haddaba waxaa qadka telefoonka ee Mersin waddanka Turkiga toos hadda ugu jira Ibrahim Maxamed Umar oo ah wiil Soomaali ah oo ka bogsooday cudurkan coronaviruska isla markaana jimcihii laga saaray isbitaalkii lagu daweynayay Ibrahim sidee ii maqashaa si fiican baan ku maqlaa walaal waaya Ibrahim waxaad warbixin naga siisaa marka hore xilligii cudurkan coronaviruska laga helay goormay ahayd waxay ahayd qiyaastii 11 maalmood ka hor marka halkee bilaabo maalintii la iga soo saaray isbitaalka waayahay calaamadaha markii ugu horeysay aad isku aragtay goormay ahayd maxayna ahaayeen calaamadaha safar baa markaa ku jiray waxaan isku arkay qandho yaro meel dheera ama jirko aad u kulul xageed ka safartay marka hore Ibrahim waxaan ka safray magaalada Muqdisho waxaan transit ku ahaa magaalada Doha ee dalka Qatar marka intaan Doha joogay ayaan waxaan isku arkay qandho oo meel dheera iyo dhuunto yar cununaysa iyo qufac yaro meel dheera waayo Doha inta joogtay garoonka miyaad ka baxday mise garoonka uun baad ku sugnayd hotel waxaan degay garoonka dhexdiisa ah haye marka muddana waan ku sugnaa ilaa iyo dhowr saacadood oo qiyaastii gaaraysa ilaa iyo 8 saacadood ayaan xagga ku sugnaa ahayd xilliga aan ku sugayay diyaaradii kale ee Turkiga ay sii qaadi lahayd markii aan diyaaradii Turkiga soo raacay ayaan waxaan isku arkay calaamado ay ka mid tahay qandho yaro meel dheer aan aad u badnayn iyo dhuunto yara cuncunaysa iyo qufac yar adigu marba maalintii ka dambeysay maalintii xigtay Turkiga aan joogay calaamaduhu way soo yara kordheen halkii maalinkii saddexaad aan imid magaalada Mersin aan imid iyo shakigii aad u soo kordhay oo ahayd in wax xigab oo kala ah ayaa laakiin qandho yara sita dhuuntuna qufac bay bilowday qufacaasoo qufac aan ka dareemayo feeraha qufac qalalan kadib waxaan garowsaday inaan tago goobta caafimaadka ee gudhow waxaan tegay goob hospital ahayd marka waxaa lagu yiri halkan waa isbitaal maaragtay gaar loo leeyahay waa inaad tagtaa isbitaalka dawladda ayaan tegay qaybta emergency ayaan tegay baaritaan baa laga qaaday muddo waxaan sugayay adigu dhowr saacadooda ugu dambeyn waxaa la yidhi waa laga helay cudurkii waxaana lagu seexinayaa qaybta karantiilka waayahay marka taariikhda aad Muqdisho ka tagtay ma xusataa dabcan bishan hadda aynu ku guda jirno gudaheeda ayay sidaan filayo waxaan qiyaasayaa inay ahayd taariikh 15 bishan 15 bishan hadda aynu ku guda jirno 29 maanta aad iyo aad waay marka karantiilka lagu geeyay kadib imise cisho ayaad ku jirtay halka waxaan ku jiray ilaa maalinta la iga saaray 11 maalmood 11 maalmood marka dawooyin miyaa lagu siinayay mise meesha waa lagu karantiilay oo wax inta dheer ma jirin dawooyin la siinayay maalin kasta waxa ii iimaanayay kalkaaliyaasha iyo dhaqaatiirta maalmaha qaar aan badnayn waxa laga qaadayay maaragtay waxa la ogaanayay dhiigga iyo pressure-ka intuu la yahay qandhadu intay gaarsiisan tahay hadday qandho jirto waxaa la weydiinayay madax xanuun uu jiro waxaa la siinayay daawooyin ka mid ah xanuun baabiya paracetamolku ugu weyn yahay haddii cunnada aanan cuni karin 3 jeer cunna la keenayay haddaan cunnada qaadan karayna waxaa la siinayay faleembooyin jirka nafaqeynaya waayahay marka lagu geeyay isbitaalka ee meesha karantiilka lagu geeyay calaamadihii ma sii koreen oo ma sii bateen mise intii bay ku ekaayeen dabcan intii bay ahayd laakiin qufiic oo kale aad buu sii noqday heer waxaan gaaray markaan qufacayo
feeraha uu aad ii xanuuno qandhadiina marmar ka dambeysay way kasii daraysay markii dambe waxaa igu darsamay wadna xanuun aan qabay ayaa markii dambe igu darsamay cudurka waxyaabaha halista uu dadku u keenayay waxaa ka mid ah qofka hadduu xaalad caafimaad hore u qabay waxaa laga yaabaa inay dib u soo kiciso iyadoo qofku isku darsanayo inuu la tacaalo ama jirkii ula dagaalamo ama ha ka adkaado ama yuusan ka adkaanin cudurkii iyo cuduraha hore qofka hore u qarsanaa marka dhibaatada ugu weyn ayaa taa ah waayahay ibraahim markii aad ka bixaysay muqdisho imise cisho ayaad joogtay magaalada xamar xamar waxaan joogay muddo bil iyo ka badan baan joogay safarkii markaa ka horreeyey xaggee ka timid intaadan xamar imaanin intaan xamar imaan waxaan ka imid chinaha kadib waxaan soo maray malaysia oan joogay ilaa iyo 10 maalmood kadib ayaan imid magaalada muqdisho waayahay markaa xaggeed is leedahay xanuunkan dabcan uu kaa soo raacay ma turkiga gudihiisaad is leedahay ma intii khadar aad ku sugnayd ma cudurka ayaa kuu qarsoonaa qiyaasta ma jiraan wax laguu sheegay halka xanuunkan aan ka soo qaad horta dadka culummada sida ay isku waafaqeen cilmigan caafimaadka yaqaana cudurka qofku ma qarsanaan karo wax ka badan 14 maalmood jirka kuma qarsanaan karo marka sidaan is leeyahay intaas tafrey diyaaraduhu waxa lagu neefsanayo hawadu oxygen saxa maaha waxa ku jira maaragtay dad baa diyaaradii lagu safraya airportada transitka lagu dad badan baa cudurkii qaba iyagoo aan is ogeyn faafinayana marka waxaan is leeyahay intii muddada aan safrayay oo safarka aan ku jiray oo dhowr meel aan sii maray dhowr diyaaradood aan raacay ayaan is leeyahay inuu cudurkii ugu haleelay marka waxaaba suuragalay intii aad muqdisho joogtaba cudurka inuu qarsoonaa uu ku hayay maya ma qarsoonay sababta waxay tahay xilliga aan ka imid aasiyada fog bil ka badan bay ahayd so marka bil ka badan cudurkii ma qarsoomi karayo bil ka badan aad muqdisho joogto soomaaliya joogto aad iyo aad da'daada imise sano jir ayaa tahay ibraahim 30 ayaan ku dhowahay waayahay marka daawooyinka xanuun baabiyaha ayaa lagu siinayay wax kale oo dheeraada ma jirin muddo 11 cisho kadibna waxaa lagu yidhi waa bogsootay isbitaalkana waa lagaa soo saaray sow sidaa maaha aad iyo aad jirkayga difaaciisa yara adkaa maadaama dhalinyaranaan ahaa marka xanuun baabi'in baa la iigu akeeyey waxa kaloo soo raacay waxay wax jirka lagu nafaqaynayo iyo daawooyin kaloo wixii kaloo markaa jirka ku jiray sida wadna xanuunka lagu daaweynayo oo kale unbaa jiray waxaa intaas soo raacayay marka intaan isbitaalka ka bixin waxaa la xaqiijinayaa in laga qaado dhacaan kale oo lagu samaynayo baaritaan kale marka xaaladaadu ay ka soo noolaato sidii hore taasoo lagu xaqiijinayo in viruskii jirkaagii ku jiro in kale leanna lama doonayo in ummaddii lasii halakeeyo suuqii lagugu sii daayo oo magaaladii iyadoo aan la hubin in cudurkii jirkaagu ka baxay iyo in kale markii la xaqiijiyey in jirkaygu ka baxay ayaa lii ogolaaday in qaybta karantiilka laga saaro marka ma qayb kale lagu geeyo oo isla isbitaalkii ah mise gurigaaga ayaa lagu diray waa layga soo saaro waxay meesha rabtaa tegi kartaa arrintan xaaladan kale oo ku haysatana iyaduna waa lagula soo xiriirayaa marka maalin kastana isbitaalku 2 jeer buu soo waacaa marka maxaa kaloo ku haysta ma xanuunka wadnaha miya xanuunka wadnaha ay haystaa oo keenay inuu soo dib u soo kaco markii ugu dhacay viruska cudurka kugu dhacay ma aragtay dad Soomaali ah oo xanuunkan iyana qaba oo ama isbitaalka kula jiifay ama aad maqashay jooga Turkiga ma maqal sida ay sheegeen howlwadeenada isbitaalka anigu baaha qofka kaliya ee Afrikaana isbitaalka marka xaaladan dadka loo dhigay waayahay ibraahim dadka Soomaalida aad bay ugu walwalsan cudurkan markaad Soomaaliya eegtana dad badan ayaanba ku baraarugsanayn khatarta cudurkan maxay tahay fariinta aad u sheegaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya kuna daawanaya waxaan isleeyahay laba qoloba meel khaldan bay taagan yihiin qolada sahalsanaysa isla cudurkuna ma jiro way khaldan yihiin kuwa islaana maaragtay isdiibay ee quusta taagan isla cudurkii waa loo baaba'aya islaana iyaguna qiyaas khaldan bay ka haystaan cudurka hortiina waa la dhimanayay isagana sabab waa looga dhigi karaa qofka cudurka hadduu dhamaadana waa la dhimanaya waa wax ilaahay taa qoray ilaahay baan u deynaynaa
wixii ka soo haraa cudurkoo wax jira ee u baahan ka hortag una baahan taxadar badan iyo dhayalsi ma geli karayo. Marka anigu waxaan Soomaalida ku leeyahay yaana la dhayalsan, ha la dadaalo, cudurkii ka hortagiisana ha lagu dadaalo. marka iyadoo qadartii dadaalkii soo hadii qadartii timaado taasoo hadii wax Ilaahay keenay loona baahan yahay in lagu qanco qadarta iyada ah. way wax talooyin aad kala siinayso oo aad leedahay waxa isticmaala ama caafimaadka ahaan iyo cudurkan ka hortagiisa ay wanaagsan yihiin ma jiraan? dad wax way sheegaan laakiin waxaan isleeyahay anigu caafimaadkana aad uma garanay laakiin waxaan isleeyahay tilmaamaha ay hay'adaha caafimaadka ku shaqada leh iyo dadka caafimaadka yaqaan ay bixinaya in la qaato ayaa ugu wacan sidaasaan isleeyahay. Ibrahim Maxamed Cumar oo ah wiil Soomaali ah isla markaana ku sugan wadanka Turkiga ayuu kaasi ahaa oo ka bogsooday xanuunka coronavirus-ka isaga oo muddo 12 cisho ah ku jiray isbitaalka dawladda ee magaalada Mersin halkaas oo ugu dambeyn laga soo saaray markii uu ka bogsooday xanuunkan. wuxuu Ibrahim naga codsaday inaan isticmaalin sawirkiisa sidaa daraadeed ayuuna u jeclaaday dhinaca kale in uu baltalooyin iyo fariin u diro shacabka Soomaaliyeed.